waxay u arkaysaa inay sharaf iyo milgo iyo kamaan ay tahay inantii marka la guursado oo iyadoo noocan loo sameeyo sidan u goda xidhan oo sidan loo cunay jidhkeediyo sidan loo tolay loo gubay markay la arko inay sharaf iyo wanaag u soo hoynayso iyo guul iyo milgo ay gaadhay ayay u arkaysaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي يدمجتني أن كلها هاي دجل كيوتيوب إسماعيل سيد فردت كل عصوب تهي channel كوسو دوغو سبسكرايب تنوفرو هذا هارون ولا شوكتي هذا نوع عصوب تهي أدول ما سنتهاي ومركلي يجار كله يجاب كله يبرنامج كيني إنه هكذا كودني يدرس جيسي أفراد أما قيبتي سي أفراد أما حلقات دي سي أفراد أو سي أن كوش يجني درسي كان كهري حلقات دي سن كهريسي برنامج كان كهري إنه كجهد لنا حاجة عافماتك أني waxaynu kaga hadli doonaa fiidiyoga soo socdana hadii la yiraahdo muuqaalkaynu wixiga aynu kaga hadli doonaa bal wixii maxay tolay aqliga caadada iyo curfiga uu ka qabo ugu horeyn baa horta bal waxaynu ogaanaa akhyaaray hooyana isma laha aabuna isma laha ilmihiisa yar sharaftiisa meel kaga dhac iyo waxyeel iyo caafimaadkiisa waxyeel iyo nusqaami toono midnaba isma laha waxa kaliya uu xano dhan u sameynaya uu ordaya uu kacaya uu kufaya uu ordaya waxa soo dhan sameynaya oo ardaya ayaanba ugu jira waxa weeyaan sidii ilmihiisu u noqon lahaa ilmo hagaagsan ilmo sharaf leh ilmo karaamo leh ilmo mustaqbalkiisa iyo aayihiisa dambe la mahadiyo waa intaasun waxa uu ordayayun wax kale ma aha wuxuu intan u sameynaya lambar 1 ilmahanu inuu ilaalsamo uu dhowrsoomo hadhow marka uu qaangaadho ee uu da'dii gaadho oo maxay ahayd toolay jinsigiisa kale ku doondooni lahaa inuu ilmahani maxay ahayd toolay aanu xad iyo teed iyo maseeta u ahaato oo aanay noqonin maxay ahayd toolay waxte haanta hadhubla ah kaasi waa qodob waxay u sameynayaan qodobka labaad ee kale ay u sameynayaan waalidka hooyooyinkeena macaana sharafta leh wanaagsan waxa weeye inay inanteedani ama gabadheedan yar sharaf ay yeelato hadhow marka la guursado oo waxay u arkaysaa inay sharaf iyo milgo iyo kamaan ay tahay inantii marka la guursado oo iyadoo noocan loo sameeyo sidan u goda xidhan oo sidan loo cunay jidhkeediyo sidan loo tolay loo gubay markay la arko inay sharaf iyo wanaag u soo hoynayso iyo guul iyo milgo ay gaadhay ayay u arkaysaa waxa kale oo ay u sameynaysaa hooyadani arrinkan ay ugu tallaabsanaysaa arrinka foosha xun leeyahay inuu sheegnay say inanteedani u ahaato in xasilan degan maxay ahayd toolay aan boodboodin sida shimbirta qof fudfudu oo boodboodisaan ahayn waa waxyaabaha ay maxay ahayd toolay u sameynayaan hooyooyinkani markay arrinkan sameynayaan waxa kale oo ay u sameeyaan hooyooyinka arrinkan dhaqan ahaan waxaan hooyadii ka soo gaadhay ayeedeed saasi u soo socotay ilaa macooyadii wixii dad marka waxay u arkaan dhaqanna in lagu guuro ayaa ku adkaanayso waxay dee Soomaalidu tidhaahdaa caado la gooyaa cadha ayay leedahay laakiin way ku qalloocantay caado la gooyaa cadha ay leedahay waxa weeye de wixii diinta ogashahay haddii qaraabo xidhiidhinta aad goyso dee cadhada alla bay leedahay haddii wanaagii in dhexdiina yaalay reerkii qaraabadii ehelkii aad jarto haddii kaliya cilaaf ku taagto taa ayaa cadha alla leedahay maaha wax soo jiray oo la gooyay ayaa cadha alla noqonaysaa caado kasta iyo dhaqan kasta oo soo jiray diinteena macaan ee wanaagsan unba la barbar dhigayaa inuu waxa dhibaato ay ku keenaysaa maxay darar iyo ku leedahay mafsado unba loo eegaya ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsan haddaan waafaqsanayn inaga tuuro haddii ay waafaqsan tahay wax wanaagsan ay tahay inaguna waan ku dhaqmaynaa maxaa marka waaye u geenayo hooyooyinkan ay u leeyihiin inantan yar ee maanta waxaan lagu sameynayo mustaqbalkeeda dambe ayaanu hagaajinaynaa oo dhisaynaa oo caynkan ayay ku dhismaysaa mustaqbalkooda wuxuu ku wanaagsanaanayaa ay sharaf iyo milgo iyo kamaan ku helaysaa hadhowna mustaqbalka markay guursatana aanu anagu maxay tolay ku mudanaynaa bilo sharaf maanta intay joogtay ee aynan tahay noo tahay ee ay guriga noo joogtana ay nugu deganaysaa nugu xasilanaysaa nugu sharfanaanaysaa arrinkan aan ku samayno maxaa u geeyey ay u odhanayaan sidaas ay u aaminsan yihiin lambar waxaa ka aban odhan karnaa aqoon darro oo maxay tolay aqoontooda oo gaaban jahli odhan kari mayno oo dadkan jahli ku sifayn mayno aqoonta ay u leeyihiin arrinkan oo gaaban oo istuseen ay arkeen in uu maxay ahayd tooley arrinkani soo istaagi karo ama arrinkani ay ku sameynayaan hablahooda yaryar uu yahay wax mustaqbalkooda dambe iyo markay inantoodu yar tahay labada u wanaagsan waa aqoonta oo gaabanuun imise ayaynu aragnay hablo la jaxaasay la xidhxidhay la adkeeyey si walba la yidhi oo haddana xumaaday
qofkii ilaahay waaniyo ayuunbaa waansan qofkiin yar caruurta ah markuu yar yahay wax lagu soo barbaariyey iyo hadba inta la gaadhsiiyo ayuunba hadhow markuu weynaadano ku tamarinaya ilmahan uu ku shaqaynaya inagoo qaaciido waxaanu haysanaa ah ilmahani marka uu weynaado ee uu qaangaadho ee wax kale uu doondoono sidii uu u wanaagsanaan lahaa inaynu ka shaqayno intuu yar yahay inaynan ka shaqayninba ilmahani waxa markuu yar yahay aynu ku tababarno ayuu hadhow dambana ku tamarinaya ama maxay tole u noqonaya rasiid iyo wax meel u yaala oo markaa la soo baxaya ilmahan intuu yar yahay aynu barbaarino taa marnaba niyaddeeda waxaan moodaa inaynan gelin haynin aynu ka fakirayna oo ilmahan markuu weynaado wuxuu samayn lahaa inaan inaguna ka fakirno waxa keliya aynu kaga badbaadaynaa waxa weeye inagoo ilmahan intuu yar yahay oo caruurta yahay tarbiyadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa wanaajina aakhriya iftiinka oo wixii anfacaya ilmaha yarina waxaa jirta dee derajooyin uu soo marmar waxaa jirta aan qowl waxba ku qaadan haynin uu ficilkaaga wax ku qaadanayo waxaynu kaga bixi karnaa arrinkan oo ilmaheenu inugu asturnaan karnaa inugu wanaagsanaan karnaa inagu diinteenna wanaagsan barna dhaqankeena iyo akhlaaqdeena ilmaha barna intuu yar yahay markuu qowlkaaga qaadan karaya iyo markuu ficilkaaga qaadan karaya jaranjarada iyo maxay ahayd dariiqada uu leeyahay kala sarreysa ilmaha barbaarintiisa iyo tarbiyadiisu inagoo intaan ku barbaarino hadhow markuu weynaadana wixii sugayay mustaqbalkiisa aanu dhisno inta ayaynu kaga bixi karanaa ay ilmo la xidhxidhay iyo ilmo la toltolay iyo ilmo la jaxaasay iyo ilmo maxay toolay jirkiisa wax la yeelay midna kaga bixi kara mayno barnaamijkeeni muddo dheer soo socday inaan dhinacyo kale ka eegno mooyaane dhinacan inta ayaynu kusoo gabagabaynaynaa intaan kulan kadib iskugu iman doono isagoo wejiyo kale leh noocyo kale ah barnaamijyo kale farbadan inoo soo socdaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu